haddii la iscafin lahaa oo dadka dhan ay iscafin lahaayeen kulley hadda inta yacni Soomaali ahaan dhibaatadana haysata abaaraha iyo dagaalada sokeeye iyo dhibaato dhan waa ka bixi lahaynay ugu horeyn saaxiib ku soo dhaw barnaamijka Ursamo waa dhawahay waa mahadsantahay magacaagu bilow magacaygu Maxamed Cabdiqaadir Maxamed Ali dhaha Maxamed qof maalin ku dulmiyay ama maartay been ka sheegay ama ku xantay oo aad jeclaan lahayd inaad iska saamaxdo niyo horta waxaan adduunyo waaye xifaaltana lagu jira bini aadanana leeyahay markasta waa la isqalaaf karaa waa la kala aragti duwanaan karaa waxbaa la isku qabsan karaa marka maybe inay jiraan waa laga yaabaa laakiin aniga hadda waxaan uurka wax ugu haysta ma jiraan cagsigeeda marka aad qof xasuusta maalin aad dhibaato u geysatay ama aad xamatay been ka sheegtay niyo hadda ma xasuusti laakiin kulli qof aniga hadda wax iga tabanaya way jiraan laakiin aniga hadda qof yani saaxiibaday dad sheegana asxaabnahay dhamaan waa iska cafiyay wax kasto ay dhaheen wax kasto ay sheeg igu sameeyaan waa cafinaya sidoo kale waxaan ka codsanayaa maadaama bil Ramadaan la joogo oo maalmihii ugu dambeeyay aan ku jiro waxaan ka codsanayaa qof kasta oo yani xumaan yani ii qaaday ama wax ii qaba ama maalinba wax aan ku sameeyay dulmi waxaan ka codsanayaa inay cafiyaan dhammaan asxaabta iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan ka codsanayaa inay iscafiyaan haddii la iscafin lahaa oo dadka dhan ay iscafin lahaayeen kulley hadda inta yani Soomaali ahaan dhibaatadana haysata abaaraha iyo dagaalada sokeeye iyo dhibaato dhan waa ka bixi lahaynay ummad yani waxaan ahaan lahayn horumarta oo danaheeda qabsato iscafisa marka waxaan dhihi lahaa ummadda islaamka dhan ha iscafisa ha la iscafiyo anigana cafisay ma saacnahay igu yihiin cid kasta wax ay qabto ma santii هذا مستعد شكرا جزاك الله